sidee ku noqotay ninkan odayga ah isagoo ahaa aabaha ninka ugu taajirsan adduunka haddana inuu wiilkiisa ay noqoto xaalad ahaan markaasi inuu yiraahdo inaan wiilkayga mar uun aan la kulmaan jeclaan lahaa haddana ayadoona weli aysan taas u suuragelin uu geeriyoodo. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لما أصحاب شرفت بدن سودوا هذا مركله وسودوا هذا مقال كله ولا الكل سعيد كل عثمان وسوي channel كوسو برو مركله وحنا دلائكم سنتين سيد مرور بعد ورا ساعتين channel كمقال ذا كسود دينو كله عوانك يهرع هدي أن مقال كان سلاس ومرنبا شرحات كلا أو دير أديك مسيجلين وحربينا والدا ونه مقال كوسافسن أضي ولا قد حوري سنايو دكان أو باسكيل معناها باسكيل هذا لو ضيعتهم odayga ganacsigiisa meesha ayuu yahay oo meeshaas ayuu ka shaqeeyaa waliba isagoo da'diisu ay weyn tahay. ninkaasi waa aabaha dhalay ninka ugu taajirsan adduunka ee la yiraahdo Jeff Bezos. xilliga muuqaalka la sameeyay, xilliga muuqaalka YouTube la soo galshay iyo xilliga hadda la joogo ninkaasi mar walba yani hanti ahaan lacagtiisa inta ay qoran tahay ama la hayo mar walba ay kala duwan tahay. hadda xilligan maanta la joogo muuqaalka aan sameynayo haddii aan weydiiyo Google aan ku qoro markaasi waxa uu sheegayaa marka anaga waxaan ka hadlaynaa kaliya hadda muuqaalkan sheekada u dhaxaysa isagii aabihiisii xagga dhiiga ama dheecaanka ee geeriyooday iyo sida ma aragtay markaasi xiriirkooda uu ahaa. You would never guess in a million years that this bicycle repairman is the long lost biological father of Jeff Bezos. muuqaalka sida uu ku bilowday ayaa ah markaa intaasoo milyan oo jeer xitaa haddii lagu yiraahdo قياس إن هذا قياسي كرين تاني كان أضيقة أو كشقية دكانك أو باسكيل هذا لقود يعتره إنه صن أهين نينك بليونير كان أبيزة لكن مرة ريلو ماي. Look at 69-year-old Ted Jorgensen side by side with هاي مركز وجهه ذا السكوبر بردقايا معناها وجهه ذا السكوبر بردقايا سيد إزواجين سيد أن أركي كرنا وحوادة سفي عنه إسكو شبهان حتى واحد إسكو شبهان قصر كان. Until recently, Jorgensen had never even heard of Amazon. He doesn't even use a computer. Jeff Bezos isaga waxa uu ku taajiray ama lacagtaas uu ka sameeyay waxa waayay inuu yahay ninka lahaa fikirka ama hindisaha habkan online-ka oo shopping-ka ee la yiraahdo Amazon. marka ninkan odayga ah maba yaqaan waxa xitaa computer ma haysta isaga waxa waayay waa hawlahaas dhan lama socdo. Jorgensen says he still remembers the very last time he saw his son. odayga laakiin markii ugu dambeysay wiilkiisa uu arko وحسوسته هاي بلصدق هاي. I was working in a Walmart and I remember them coming to visit me for some reason. It was cold and he had his little winter coat on. xilliga ugu dambeysay waxay ahayd oo dhahay yani winterka ama dhanka jiilaalka oo xilliyada oo dhanka galbeedka markaasi noqonayo qabowga ayay ahayd anigoo dukaan la yiraahdo Walmart anigoo ka shaqeynayo ayay soo booqan jireen oo dhahay adiga markaas ay ugu dambeysay. Were teenagers when they got married in 1963. Back then, Jorgensen was a poor circus performer. ninkan markaa iyo xaaskiisii oo wiilkan wada dhalay iyo sheekadooda sida ay ahaydna waxa waay markaa 1963 ayay isguursadeen aan lahay. markaa ninkan isaga qof iska faqiir oo ahaa laakiin wuxuu sameeyay jiray yani ciyaarahan oo maaragtay oo bandhig ahaan markaas loo soo bandhiga dadka oo baaskiilka oo halku ku soconay kaliya oo maaragtay dadka showga oo kala lagu sameeyay kadib insaas lacag lagu siinay shaqadiistaas ay ahayd. adi markii dambe way kala tageen markii ay kala tageen markaa wiilka waxa ka xeysatay hooyadiis. Son Jeff was born in 1964. After the marriage broke up, 64 waxa uu dhashay markaa wiilkan la yiraahdo Jeff markii uu dhashay kadib waxay noqotay markaa inuu guurkoodii burburo isaga iyo xaaskiisa. markaa guurkii maadaama uu burburay ninkan waxa uu markaa diiday in waajibkii lagu lahaa oo dhanka wiilkiisa oo inuu la koriyo ayadana sidoo kale markaasi waxa ay sameysay inay iska guursato nin kale oo asna magaciisa la yiraahdo Mike Bezos oo ah ninka welibana soo koriyay Jeff Bezos oo welibana u soo koriyay sida inuu isaga dhalay oo kale magaciisana siiyay. had you ever regretted that decision? odayga waxa la weydiinayaa weligaa ma ka shalayday macnaha go'aankaas aad gaartay oo ah in wiilkaaga qof kale aad u dayso. waxa uu ku jawaabay waxa uu ahaa qalad aad u weyn laakiin waqtigaas aniga waa uu ila saxnaa. But at the time, I thought it was the best. waa sax mar walba qaladka mar waxa uu sameynaysaa adigoo markaasi ka xun oo aad arkayso inuu qalad yahay iyo inuu markaasi uu kula saxan yahay oo aad dib ka ogaato. ninkaasna intaas wixii ka dambeeyay asna kulay nolol kale uu iska sameystay oo waxa waaye
adiga dukaankan baaskiilkuuna furtay dukaankan oo baaskiilada oo lagu dayactirana markuu samaystay adiga 40 sano ee ugu dambeeyay noloshiisana meeshan ayuu ka shaqeynaya liiri. He asked me if I knew who Jeff Bezos was. What did you say? I said, no, the name kind of sounds familiar, but I don't know. marka hadaba su'aasha waxay tahay odaygan meesha ka shaqeynayo oo computer aan haysan hawlahaasi dhanba ku jirin sidoo ku ogaaday yaana u sheegay inuu Jeff Bezos oo ahaa markaasi nin aad u maal qabeena magaciisana la waday inuu yahay aabihiisa. marka nin ayaa arintii soo tixraacay soo ogaaday una yimid u sheegay oo yiri wiilkaaga waa ninkaasi yani sideed u aragtaa isagana wuxuu yiri aniga maba ogeyn buu dhahay yani magacaas si inaan u maqlay aan u maleynayaa laakiin yani qofka uu runtu u yahay magacaas maba aanan ogeyn. Forbes magazine lists Bezos as America's 12th richest man. xilligaas la joogay marka Jeff Bezos waxa uu ahaa qofka 12aad ee ugu taajirsan oo ahaa Mareykanka. hadda xilligan la joogo uu yahay qofka koowaad iska day Mareykanka adduunka ba ugu taajirsan laakiin xilligaas wuxuu ahaa Mareykanka 12aad qofka ugu taajirsan. taas oo xilligaas ka dhigaysay lacagta uu haystay xilligaas 27 bilyan. Says because Bezos is so rich and powerful, contacting him is difficult. marka ninkan hadda kadib asna waxa waaye dukaankii markii uu furtay kadibna adiga waxa uu guursaday xaas kale oo magaceeda la yiraahdo Linda oo adiga 26 sano ugu dambeeyay meelahaasi ee isqabeen. Linda aydan marka waxay leedahay maadaama uu yahay Bezos nin taajir ah oo awoodna leh macna aad ay u adag tahay markii xitaa nolosha ay kadib in la xiriiro oo la yiraahdo yani waa aabahaga rabo inuu kula hadlo mar uun sida ahaataba. I think it's made an obstacle that wouldn't have been there had he been a garbage collector. isku soo wada daro adiga kulay un Bezos asna waxun baa laga weydiiyay sababtoo ah qofka marka uu taajir yahay ama uu magac leeyahay marka meel oo isaga wax ku saabsan oo kale la soo qaado yani journalistiyaal badan idaacadaha yani wax badan ka hadlayo marka isaga markii oo arintii lagu soo qaaday waxa uu ka soo qoray un hal mar oo ayuu Twitter wax ku soo qoray uu yiri aniga waligay lama kulmin uu yiri ninkaas halka mar kaliya aan ka fikiro ama uu igu soo dhacan waxay tahay markuu dhakhtarku igu yiraahdo foomkan buuxi macnaha tusaalahan oo kale markuu dhakhtar yiraahdo aabahaga dhabta ah yani oo kale meesha ku qor oo isna oo xasuusanaa inuu ninkan uu aabihiisa ahaan soo korsaday uu magacna siiyay laakiin uu aabihiisa sidaas uu uga tagay. Jorgensen is battling emphysema. He says he wants to see his son one last time before he dies. de marka odaygan asna ugu dambeyntii ilaan wixii uu soo sameeyay maadaama aysan u soo laabanaynin laakiin waa qof adiga shalayto ku noolaa waxa uu leeyahay waxaan jeclaan lahaa inaan wiilkayga hal mar aan la kulmo aan arko yani inta aan dhimanin ka hor muxuu dhihi lahaa marka. He says he doesn't want a penny from his son and just wants to apologize for what he calls the biggest mistake of his life. niga kama rabi lahayn yani hal senti kama rabi lahayn ama lacag kama rabi lahayn maadaama uu taajir yahay laakiin kaliya waxaan rabi lahaa inaan ka raali gareeyo yani qaladkii ugu weynaa noloshayda oo aan isaga ka galay macnaha qaladkii ugu weynaa noloshiisa oo isaga ka galay waxa waaye in halka wiil ee kaliya uu dhalay maaragtay uu qof kale uu ku sii daayo yani ay noqoto inuu qof kale magac siiyo uu xiriirin waayo mas'uuliyadiisa uu qaadi waayo waalidnimo uu xiriirin waayo markaasi. okay tan ugu dambeysana markaasi waxa uu leeyahay waxaan jeclaan lahaa inaan ugu hambaliyeeyo hawsha uu qabsaday iyo sida uu noloshiisa u ka dhigay. marna isagoo kaftamay marka ninkii wariyaa uu weydiiyay maxaa ku dhihi lahayd marka la yirina sidoo kale wuxuu leeyahay waxaan u sheegi lahaa inaan maaragtay aan diaperskiisa ama xafaayadiisa aan bedeli jiray. I just feel like tell him I used to change your diapers. laakiin waxa waqti badan ka hor kule isagoo muluq ah ee aheedan u maleynaya markii hooyada ay wiilka qaadatay asna uu xiriirka u jaray. muuqaalkan waxa la soo daayay 2019 ayaa YouTube la soo gashay xilliga markaasi muuqaalkan la sameeyay waxaan u maleynayaa inay ahayd adiga 2013 iyo 12 meelahaas. marka qoraal lagu soo daba qoray oo la yiri marka 2019 bishii June Jeff Bezos hantidiisa waxa ay gaaraysaa markaasi 119 bilyan. marka ninkan la yiraahdo Jorgensen waxa uu geeriyooday 2015 isagoo aanan wiilkiisa arkin. aniga guud ahaan marka sheekadani hadii aan ka qaadano waalid iyo caruurtiisa oo kala ahaan aan u qaadano qofka adiga aad caruurta wadaagteen xitaa hadii aydan isku fiicneen ee noqoto xitaa caruurtaada mar walba inay qurux badan tahay si walba ay ahaato inaad xiriiriso sababtoo ah yani xilligaas adiga hore waxa waaye waad
aad adag tahay oo waxaad isleedahay laga yaabo uma baahnid adiga naag kale aad guursanaysaa ama nin kale aad guursanaysaa ilma aad maaragtay dee aad wada helaysaan kuwaasaa wax kuu tarid waxaas inaad isleedahay laga yaabaa laakiin ma ogaan doontid dee canugaaga ama ilmahaaga adiga aad dhashay meeshuu kaaga soo bixi doono iyo ficilka markaas adiga aad samaysay sida uu dib nolosha dambe uu u saameyn doono iyo shalaytada ama farxadda uu ku gelin doono markii adiga aad qaadato go-aanka kow adiga lagaaga baahnaa inuu maaragtay ansaxdo intaas rabay inaan idin soo gudbiyo dhammaantiin waa mahadsantiin inta muuqaalkan aad daawateen insha Allah inta muuqaal kale aan kulmi doono waxaan idinkaga tegayaa nabad ah